inaynu qadiyadan ka dadaalno oo dadka laa ilaaha illa allah u saxno oo u hubinno waa wax mashaakilkeena oo dhan xal u ah siiba waxaan tilmaamayaa dhalinta yaryar ee casrigan yurub ku kortay ee cilmaaninimadan iyo ilxaadkan iswataa bartay ma anfacayo qur-aan la qaybsiiyo keliya soomaaligu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo carruurta qur-aankaan baray dabeetana uu moodayo inuu xujadii ku oogay qur-aan ay xifdiyaan xujo ku oogi maayo walidalik ayaa axad ulculamaa soomaaliyeed baa wuxuu tilmaamayey niman baan ku yidhi bu yihi war tawxiidka dadka aada ugu dhigo waaga markaasay yidhahdeen may annaga yararkayga aad bay u fiicayn o bal iigee baan ku yidhi bu yidhi malcamadiisaanima bu yidhi qur-aanka kuwii inan baan u yeedhay bu yidhi qur-aan ma qaybsantay haa imsaa qaybsantay 15 jis dhankaasaan ula baxay bu yidhi waa nin reer galbeedka iyo warkooda yaqaana si fiican baan ula sheekaystay bu yidhi warkaygii reer galbeed baan ku akhriyey dabeetana su-aalaan weydiiyey waxaan ku yidhi bu yidhi really do you believe God run ahaantii ma rumaysantay horta ilahay jiritaankiisa haddaba gabadha 15 qur-aan naga horsan intay madaxaasaa tirtiri bay tiri bu yidhi there's no enough evidence ma caddaymo fiican uma hayo 15 qur-aanana waa qaybsantay maxaan uga dan leeyahay markaa soomaaliya dadku ahlu tawxiid buu ahaa shubahaadna ma arki jirin qur-aankiisu qaybaabaa ku filayo anfacayay laakiin halkan haddaad tidhaahdaan qur-aankaanu qaybsiinay iyo qur-aankaanu u dhignay warkaas ku badbaadi maayo wax la xifdiyey qur-aan aanu garanayn wuxuu sheegayo siduu ugu badbaadaa waa adagtay waxaynu u baahanay waxa weeyaan dadkan inaynu tawxiidka u dhigno dadkan inaynu tawxiidka u dhigno ama tawxiid urububiya ha noqdo ama tawxiid aluluhiya ha noqdo ama tawxiid alasmaa wasifaat laa ilaaha ila allah dadkan inaynu si fiican uga dhaadhicino waana mas'alada ka yarina ku badbaadayo ka weynina ku badbaadayo waddankeenuna ku islaaxayo idan waxaan labada daris ee kaashal akhriye kaan maanta akhriba uga dan leeyahay war xataa haddaynu adduunyo doonayno tanbay ku islaaxaysaa tanbay ku jirtaa adduunka islaaxiisii aakhirana walba waa isku waafaqsaneen wasala allahuma calaa muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin